inayno degmada Salaxley oo maanta caliimka joogno iyo deegaamo badan oo hoos yimaada iyo deegaamo badan oo runtii iyaguna aanu safar ku mari doono waxaanu runtii muddo 3 cisho aan kormeeri doonaa deegaanka iyo dadka iyo duruufta ay ku sugan yihiin iyo xaaladaha kala gedisan ay ku jiraan intaba runtii waxoogaal ban u noqon doonaa horena waan u ogeyn kulle oo dadka waan isku xidhnayn laakiin tiise hadda maadaama la gala waqti iyo wacdi doorasho waxaan dadkii deegaanka u maraynaa runtii halkii aanu runtii dan u aragnay ee aanu ku tilmaamno aan ku guwaabino oo ah in xisbiga kulmiye codka siiyaan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye in codka madaxweynaha siiyaan baan runtii aanu ku mideysanahay dadkana aan u sheegaynaa Muuse Biixi Cabdi insha Allah waanu soo noqon doonaa waana guulisan doonaa haddii la yiraahdo waana waqti doorasho tartankana war runtii waxa loo sameeyay maalin bade runtii muxuu ahaay tartanka la galaya ummadda iyo shacabkaasa kala garsoori doonta oo kala xaq soori doonta oo marka codka siin doonta marka Kosokow adeegyada halkan aan ka bixin doono maanta aan ku sinno Kosokow adeegyada asaasiga ah waxa ku lamaan in aanu runtii xisbiga in aan runtii musharaxa iyo deegaankaba aan u sheegno in aanu dhisayno musharax madaxweynaha xisbiga kulmiye haddii la yiraahdo taasaanu iyaduna aan runtii aan naga marnayn waxaan runtii Ilaahay ka bariyaa doorashadaas inay mid wanaagsan oo Soomaaliland guul soo horseeda noqoto waana guushana ilaa iyo saacadda ugu dambeysay sanduuqa codka lagu rido runtii cid sheegan kartaa ma jirto sanduuqa waxa ku dhacan baa loo kala baxayaa cid walbana ku qanci doonta haddii la yiraahdo anaguna waa dadaalaynaa waxba la hadhimayno insha Allah waana guuleysanaynaa taasun baan shacabka iyo ummadana la wadaagaynaa xisbiga kulmiye guuleystay imikana markii saddexaad runtii tartan ugu jira marka insha Allah intaasan ku soo ururinayaa aad iyo aad u